Breaking news: Bukayo Saka iyo Victor Gyokeres ayaa mar kale dagaalkooda dib u soo cusboonaaday. Kulankii ugu dambeeyay ee kooxda kubadda cagta Arsenal ay wajahday kooxda kubadda cagta ee Chelsea ama Blues ayaa waxaa la arkayay Bukayo Saka dhowr baas oo furun oo uu siin karo saaxiibkiisa Victor Gyokeres asigoo gadaal u celinaya oo la raadinaya xidiga kale. Sidaa darteed, gooshii ugu dambeeyay ee uu dhaliyay Victor Gyokeres, Bukayo Saka wuxuu helay kubad furun uu siin karo saaxiibkiisa Victor Gyokeres, weliba Gyokeres oo qaatay booska ugu fiicnaa ee kubadda looga baasi lahaa. Taas beddelkeeda ninka lagu magacaabo ee Bukayo Saka ayaa ka doorbiday kubadda intuu u baasi lahaa Victor Gyokeres inuu gadaal u celiyo ama ay sii haysto kubadda si uu u raadsado laad xor ah. Laakiin taasi ma ay dhicinay xidigaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ninka laga magacaabo Marcos Cucurella oo barashar xoogan saaray Bukayo Saka. Kadib, xidiga Bukayo Saka ayaa kubadda wuxuu u baasay xidiga Benjamin White oo ah xodiga xulka qaranka England iyo kooxda kubadda cagta Arsenal. Taas beddelkeeda, Bukayo Saka wixii uu nacbadaa inuu sameeyey ayaa Benjamin White sameeyey ee kubaddii wuxuu soo dhigay karoos oo dhulka ah, kaas oona u saamacday xidiga Victor Gyokeres inuu si fudud uu gool ku dhaliyo. Marka goosha dhaliyay Victor Gyokeres, Bukayo Saka wuxuu sameeyey inuu la dabaaldego saaxiibkiisa ee Victor Gyokeres maadaama gooshaas muhiim u ahayd kooxda kubadda cagta Arsenal ayna ahayd gooshii labaad ee kooxda kubadda cagta Chelsea ee laga dhaliyey. Kadib markii uu isku dayay xidiga Bukayo Saka inuu la dabaaldego saaxiibkiisa Victor Gyokeres ayaana xabadka gacanta ka saaray Bukayo Saka, weliba uu iska kala tuuray uuna diiday inuu la dabaaldego goosha uu dhaliyey ama farxad uu la qaato. Xitaa Victor Gyokeres wejigiis waxaa ka dheexan kartaa xanaaq fara badan, xitaa walow uu diiday inuu u dabaaldego goosha uu ka dhaliyey kooxda kubadda cagta Chelsea. Taas beddelkeeda waxaa ku qasbay inuu goosha ku dabaaldego xidiga kooxda kubadda cagta Arsenal iyo xulka qaranka Brazil ninka lagu magacaabo Gabriel Magalhaes, kaas oona aad muuqaalka sida ka aragtid buu u imaanaya uuna ku qasbayo inuu ku dabaaldego goosha uu dhaliyey. Waayo carada ka muuqatay Victor Gyokeres muusan ahayn mid lagu dabaaldegi karo ama farxad lagu abuuran karo. Bukayo Saka ciyaarta intuu socotay wuxuu helay dhowr jaanis oo ku caawin karay saaxiibkiisa Victor Gyokeres, laakiin Bukayo Saka mar walbana wuxuu isku dayaa inuu ka ilaaliyo goosha inuu dhaliyo Victor Gyokeres. Waa huba adiga haatan daawanayo waxaa tahay taageero Arsenal, waxaana u qaadan kartaa inay tahay tani. Jaraa'idadu waxay soo qorayaan wax maalaayacni ah, laakiin haddii aad dib u daawato dhammaan kulamada ay wada ciyaareen xidigaha kooxda kubadda cagta Arsenal Victor Gyokeres iyo Bukayo Saka, waxaad arki kartaa dhowr kubadood oo Bukayo Saka uu siin karay Victor Gyokeres, laakiin taas beddelkeeda ka doorbidayo in xidigaha gadaalka soo ordaya ama boosas kala duwan qaadanaya uu u baaso si uu jaanis ugu helo mar labaad inuu kubadda loo soo celiyo Bukayo Saka. Sidaad ka arki kartid goosha ugu dambeysay oo Victor Gyokeres dhaliyey kooxda kubadda cagta Chelsea oo ka dhaliyey, Bukayo Saka wuxuu heli karay jaanis furun oo ugu baasi karo saaxiibkiisa Victor Gyokeres, laakiin mausan sameyn. kubaddu wuxuu u dhigay Benjamin White, wuxuuna rabay in mar kale White dib u soo celiyo si laad xor ah ama darbad fiican uu u helo Bukayo Saka, laakiin Benjamin White ayaa ka doorbiday kubad inuu dhigo booskeeda saxda ahayd halkii uu la raadin lahaa Bukayo Saka. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xidigan dhowaan markuu ku soo biiray sanadkiisa ugu horeeyey Victor Gyokeres waxaa la filayay inuu noqon doono hogaamiyaha ruuxiga ah ee kooxda kubadda cagta Arsenal, laakiin taas waxaa ka diiday ama ilaa haatan ka diidan in xidigan goolal fara badan dhaliyo. Xidigaha kooxda kubadda cagta Arsenal kuwooda ugu wanaagsanaa ama aan dhihi karno xidigan waa hogaamiyaasha kooxda kubadda cagta Arsenal 3 sano ama 4 xilli ciyaareed oo la soo dhaafay. Xidigahaasna kugu kala ma ahan. Xidiga koowaad waa Bukayo Saka, kan labaadna waa Martin Odegaard oo asigana ogoleen inuu u baaso wax kubadda Victor Gyokeres. Waxaadba moodaa labadan xidig inay ku soo heshiyeen in kooxda laga saaro Victor Gyokeres line-upkeeda maadaama xidigan uu yahay xidig tayadiisa sareysa uuna magacii maamus uu ka samayn karo gegada Emirates Stadium, booska ee la buunbuunin lahaa xidigaha Bukayo Saka iyo Martin Odegaard in magaca weyn ay ku leeyihiin kooxda kubadda cagta Arsenal uu qaato Victor Gyokeres ayay diidayaan. Taas beddelkeeda waxay doonayaan xidiga inay ka taqluusaan ama ay ka dhigaan mid valooba. Victor Gyokeres mar hore ayuu fahmay xidigahan ujeedkooda iyo hadafka ay leeyihiin, laakiin Victor Gyokeres ma ahan mid u joojinayo. Mar walba kulan walba wuxuu soo bandhigayaa ciyaar cajiib ah oo taageerayaasha kooxda Arsenal ay soo jiitaan xitaa hadduusan gool dhalin.
bilowgii xilli ciyaareedkan ilaa iyo haatan Victor Gyokeres bandhigiisa ma xumo, laakiin goolish inuu dhaliyo waxay ku xidhan tahay xiddiga garbaha ka ciyaareen inay ka caawiyaan oo ay u soo dhigaan karoosyo dhaadheer iyo si lamida baasaska dhexbixiska ah. waayo Arsenal labada garbood waxa uu ciyaara Leo Trossard iyo Bukayo Saka, labadoodaba waxay doonayaan goolish inay iiga dhaliyaan, laakiin diyaar uma ahan inay ka caawiyaan gool Victor Gyokeres. dhammaan kulamada ay soo ciyaareen dib haddaa u daalacatidna wax walba way kuu muuqan karaan ay sida xiddigahana ay u diidaan inay u caabiyaan. taas waxaa ka sii daran khadka dhexe ee attacking midfielder kooxda kubadda cagta Arsenal. waxaa u ciyaara xiddiga kabtanka Norwegianka iyo kooxda kubadda cagta Arsenal Martin Odegaard, kaas oo kubado furan asigoo heli kara oo dhax kutur u samayn kara xiddiga Victor Gyokeres oo kubadda inuu ceshto dib u celinaya. dhowr mar ayaana aragtay ama aad arki karta haddii aad dib u daawatad ciyaaraha ay soo wada ciyaareen xiddigahan. markaan Victor Gyokeres iyo Bukayo Saka waxay gaareen heerkii ugu dambeeyey ee dagaalkooda ee jaraa'idada caalamka ee barta X-ka ama Twitter-ka iyo sidoo kale Facebook-ga ay ku wada qoreen dunida oo dhan. Bukayo Saka markuu isku dayay inuu la dalbaaldego Victor Gyokeres xabadka inuu gacanta ka saaro iska kala tuuraya asigoona ka biyadiidaya inuu la dabaaldego maadaama uu yahay xiddig xaasid ku ah uuna diidaya in goolal uu dhaliyo Victor Gyokeresna wixiisa iska sheeg ma ahane qof walba ayaa arki karaa in Bukayo Saka mar walba isku dayo inuu dhaliil ka muujiyo inuu kubad u baasan Victor Gyokeres. hadda dagaalada labadan xiddig haddii ay la soo dhexgelin waxaa la leeyahay labadan xiddig midkood ayaa ka bixi doona shaxda kooxda kubadda cagta Arsenal. Victor Gyokeres waxaa laga yaabaa adiga inaad ku dhegan tahay oo leedahay Victor Gyokeres ma ahan gool dhaliyo sanadkan, wax gool ah ma dhaliyo saasaa jirta, laakiin runta taas ma ahan. ma og tahay Victor Gyokeres inuu yahay xiddigii labaad ee kooxda kubadda cagta Arsenal ugu goolasha badan sanadkan asigoo aan wax gool ah ama caabimaad ah u samaynayn xiddigaha kooxda kubadda cagta Arsenal ay la ciyaaraan, asigoo wax caawimaad ah ka helaynin saaxiibadiisa ee kooxda kubadda cagta Arsenal sida labada xiddig garbaha ka ciyaaraan iyo ninka ka ciyaaro nambarka 10 ee Martin Odegaard wax caabina asigoo ka helaynin nambar 9 oo ciyaaraya Bukayo Saka iyo sidoo kale Leo Trossard wax caabimaad ah kama helin ilaa iyo haatan xiddiga Victor Gyokeres. sidoo kale Martin Odegaard saas ay tahay Victor Gyokeres waa xiddiga labaad ee kooxda kubadda cagta Arsenal xilli ciyaareedkan ugu goolasha badan markii laga reebo Gabriel Martinelli oo dhaliyay 9 gool total goolasha guud ee kooxda kubadda cagta Arsenal. xiddiga labaad ee goolasha guud ee kooxda kubadda cagta Arsenal u ansixiyay ama u dhaliyay xilli ciyaareedkan waa Victor Gyokeres, wuxuuna kooxda kubadda cagta Arsenal siiyey ama gacanta ka saaray 8 gool oo nadiif ah, kuwaas oo kooxda kubadda cagta Arsenal darajada ay maanta joogto ay gaarsiisay. sidoo kale Victor Gyokeres wuxuu sameeyey 1 assist kulankii ugu dambeeyey oo kooxda kubadda cagta Chelsea ay wajaheen, wuxuuna qaatay man of the match-ka ee kulanka maadaama uu goolna dhaliyay sidoo kale goolna caabiyey, uuna xiddiga ugu dhaqdhaqaaqa wanaagsanaa ee gegada Emirates Stadium ama gegada Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea. xiddigaha kooxda kubadda cagta Arsenalna midka ugu wanaagsanaa uu noqday maadaama xiddigan uu yahay xiddiga ugu barashadka badan ee kulan walba la ciyaarayo, cadaadiska ugu badan kooxooyinka ka soo horjeeda ay saaraan, asigana si lamid ah kulan walba wuxuu dadaalkiisu geliyaa inuu barashar gareeyo dhammaan daafacyada kooxooyinka ka soo horjeedo. waxaadna middaas ku qeexan kartaa ama aad ku arki kartaa kulamada ninkan ciyaaro Victor Gyokeres. marka ay Victor Gyokeres bedel lagu sameeyo ama garoonka laga saaro kooxda kubadda cagta Arsenal, cadaadisku wuu ku sii badanaya oo cadaadisa la saaraya. laakiin haddii Victor Gyokeres ciyaarayo waxaad arki kartaa daafacyada kooxda ka soo horjeeda kooxda kubadda cagta Arsenal inaysan soo wajahi karin ama weerar ku soo qaadi karin kooxda kubadda cagta Arsenal, iyagoo cabsi ka qaba weeraryahanka xooga weyn ee darbadana xoogan uu leeyahay Victor Gyokeres. haddaba dhegeysiye daawade dagaalkan Victor Gyokeres iyo Bukayo Saka yaad isleedahay wuu qaldan yahay, yaas isleedahay inuu xaliyaa loogu baahan yahay dagaalkan soo laabto ee Victor Gyokeres iyo Bukayo Saka. dhegeysiye daawadayaal aad baad u mahadsan tahay, fikirkaadu waa inoo muhiim. mahadsanediin.